shabeelka Afrika waa ugaarsadaha ugu weyn xagga dhaqashada waxaanu inta badan ugaarsadaa eelada ama deerada isagoo si gabasho ah ugu soo dhawaanaya balse ugaarsigiisa boqolkiiba 80 waa kuwa fashilma oo aan lagu guuleysan waxaanu ku fiican yahay meelaha ciriiriga ah balse haddii ay timaado meelaha banaanka ah inta badan ay daaqaan deerooyinka wax calaf ah kuma laha hadda bohoshan yar ee biyo mareenka ah ayuu isku qarin karaa waxayna u tahay fursad uu si gaadma ah ku qaban karo deeradan digniin dhowr ah oo daanyeerka bixiyay ayaa cadaynaya isla markaana shaki gelinaya deerada inay halkan wax ka dhow yihiin hase yeeshee daqiiqad kadib waxaa halkii ka soo booday shabeelkii oo markii horeba laga qabay shaki taasina waxay noqotay in mar labaad lagu guuldarraysto ugaarsiga eelada ama deerada iyo daanyeerku hadday meel ka wada daaqayaan inta badan daanyeerku waxa uu bixiyaa digniin eeladana waa mid isku halaynaysa daanyeerka guuldarrada shabeelka ka soko waxa uu dareemay ur kale oo ah inay halkan ka dhow yihiin dugaag kale waa gool libaax ah oo ka waxeshay in halkan uu shabeel joogo hase yeeshee shabeelku maaha weli mid arkay waxa uu kaliya u qabaa shaki gooshi waxa bedelay aar ka oo soo dabagalay shabeelka isla markaana ka daba dhuumanaya shabeelku naftiisu khatar ayay ku jirtaa haddaan waa warmoog meesha ugu dhow ee uu ku badbaadi karo waxay ahayd geed sal weyn oo marna muusan libaaxa fuuli karin libaaxu awood uma laha inuu geedaha sidaa u dhaadheer fuulo hase yeeshee libaaxu maaha mid keliya waa koox libaax ah oo u badan aar iyo weliba gool kadib markii la hareereeyayna waxa uu ku qasbanaaday shabeelku inuu geedka sii saarnaado in muddo ah inta ay hoos ku cuni lahaayeen balse waxaa ilaal ahaan looga tagay 3 aar oo ku sugaya geedka hoostiisa intuu doonnaba ha saarnaadee shabeelku maaha mid xoog badan balse waa mid caqli badan intay hurdada ku maqnaayeen waxaa isku dayayaa inuu si tartiiba uga daadego geedka wuxuuna iska hubinayaa suurtagalnimada inuu ka degi karo ugu dambayntii waxa uu bixiyay cod yar oo jaqaf ah kuwa aanay libaaxa u qaadan inuu yahay shabeelkii balse isaga waxa uu gaaray fogaantii uu doonayay goor hore dhulkan geedaha badan ee ciriiriga ah waa halka uu jecel yahay shabeelka inta badan inuu ka waarsado oo haddii uu fursad ka helo eelada
hardanka iyo cunto raadiska ayaa ka mid ah la dagaalanka nolosha, waxaadna ku arkaysaa xayawaano badan oo la hardamaya nolol maalmeedkooda. gariga inta badan isaga waxa uu leeyahay oo kaliya hal cadow, kaa oo ah libaaxa. wax libaax ka baxsanna marnaba kama baqayo. eeladan ama deeradan waa mid foolanaysa oo ilmuhu ka soo dhow yihiin, balse waxay leedahay meel wanaagsan iyo qaab fiican oo ay u dhasho. xooluhuna inta badan marka ay foolanayaan waa ay ka haraan xoolaha kale ee la socday. dhulkan bannaanka ah waa dhul weyn oo oomana ah, sidaa awgeed waxaa loo sameeyey baraagad yar oo xilliga oomanaha ay biyo ka cabbaan. waxaana halkan inta badan biyo ka cabba xayawaano badan oo isugu jiraan kuwa la ugaarsada iyo kuwa wax ugaarsadaba. ugaartii oo dhan ayaa diday sababtoo ah mid ka mida eelada ayaa ku dhacday biyaha. taasina waxay fursad u tahay dawacada Afrika oo iyada ka faa'iidaysata inta badan xayawaanada aan tabarta lahayn. qotada biyaha maaha kuwa dhow, isla markaana waa biyo shamiinda lagu sameeyey oo sibiq leh. eeladana maaha mid ka soo fuuli karta. sidoo kale labada dawac waxay doonayaan si ay ku qaban lahaayeen, maana doonayaan inay ka baxsato, waxaanay ka kala istaageen labada dhinac. hadda eelada waxay qaadatay go'aankeedii ugu qaldanaa ee weligeed ay qaadato, waana mid kugu horseedaya in maanta laga dhigto qado. durbadii cagaha dhulka soo dhigtayba waxay dhiibatay dhuunta halkaa oo dawacada ay ku dhegtay ay nahayn doonto ilaa ay nafta ka baxdo. eelada maaha mid isu gurmata ama xitaa isu soo dhowaata. kuwa kale ayaa bartooda biyaha ka cabbaya kana daaqaya bannaanka, isla markaana iska indhitiray mid iyaga ka mid ah oo halkan lagu qabsaday. mid ka mid ah waxay haysaa dhuunta oo ah bartii loogu talagalay, halka midda kalena ay ku bilowday fiiqidda maqaarka. haddii ay suurtagal u noqoto inay sii haystaan, waxay cuni doonaan muddo aad u badan, balse dhulkan oo ah meelaha inta badan dugaagga yimaado, isla markaana ah meel biyaha laga cabbo oo aan marnaba laga maarmin, waxay u eg tahay inaanay wada dhammaystiri doonin. walaal ha naga ilaawin inaad kanaalka subscribe saarto.